السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين وحان idinku salaamahayaa salaanta islaamka soo dhawaada reena badiyo nolol meel batadwada ka joogtaan waaski duqbalow ahaa kablo faarax walaalkiis macowkii ka yaraa bashir balla mataanaayeen xasan guri saaxiibkiis qarashow dariskiis ku noolaa urawna garseekuusa haajaba kaja lagti macal shuuriye binaaweyn shanta qabqori reena badiyo nolol waanu guuleysanay waxaanu ka guuleysanay cadawgii Soomaaliya inay burburto go'aan ku gaaray waxaanu ka guuleysanay cadawgii shisheeye ee dhaqaalaha aadka u tira badan soo galiya dalkeena ee damacsanaa rajada ummadda Soomaaliyeed in la baabiyo aadiya warkii u dambeeyay nimankii mucaaradka ahaa ee isku rarantaha dhowrkii sare la soo dhaafeen ummadda Soomaaliyeed qabyaalada iyo quranka ku kala qeybinayay waa kala dhaqaaqeen nin walba meel buu taagan yahay ka kalu ka shakisay aadiya reena badiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo guul buu caawa iyo saaka fadhiya insha Allah doorashada hadda waxa ka hartay muddo yar oo kooban waxaanu rajeenaynaa oo rajadanadu ay magaraysaa aad ugu sareysa in uu guuleysan doono madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo xaqiiqda dhabta labadan maalano duqbulo wallahi ma soo galin sababtaan u soo galna waxay ahayd in magaraysaa xogtanada iyo waxa annaga magaraysaa marka aan ku fikireen inaysan banaanka imaanin darteed ayaana live u soo gal sidaad arkaysaan maalmaha waxa daawanayseen dadkii dallayda ahaa ee qabyaalada ku taageerayay magaraysaa shakhsiyaadka ay soo dirsadeen imaaraadkii Kenyaanka waxaad ka daawanayseen social media ayagoo leh lacag baanu bixinaynaa lacag baanu haysanaa lacag buu hebel jeebka magaraysaa hebel u gelin doonaa iyo magaraysaa corruption ayagoo ku faanay waad aragteen beejadka nabad iyo nolol ugu horeeyo duqbilow duca ka socotay hadda daawanayseen TV-yada afka Soomaaliga ku hadla qeybahooda wanaagsanna waxaad ka daawanayseen shacabka Soomaaliyeed oo dareenkooda soo gudbinaya ma sha Allah kuna magaraysaa ay codsanayay in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ay xildhibaanada doortaan aadiyad waa guul waxa weeye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kama uusan qeyb qaadanin xalfadihii waaweynaa ee lacagaha faraha badan lagu qarash gareerayay ayadoo shacabka nagu gaajeysnaayeen kama uusan qeyb qaadan halka xasan lacagii imaaraadka u soo dhiibeen hooyooyinka Soomaaliyeedna ay banaanka taagnaayeen ay tugsanayeen dalkana waa waar ka jiro uu qadad cagaaran iyo qadad blue ah iyo magaraysaa sawirro lagu xardhay magaraysaa wajigiisa uu ku faanayay farmaajo kuma uusan faanin ummadda Soomaaliyeed halka waxa uga cad oo ummadda Soomaaliyeed magaraysaa indhahooda ku arkeen in xasan lacagta uu haysto uusan u quurin shacabka Soomaaliyeed oo u quuran camlayaal asaga magaraysaa durbaanka u tumo iyo in wax la dhacdo kaliya halka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu ka damqanayay hooyooyinka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed ee abaartu soo ragaadisay in hantida iyo waxa uu asaga markaas uu asagu haysto iyo hantida dadweynaha labadaba uusan u isticmaalin campaign iyo laydad qurqurux badan aadiyad halkaas waa wiigi la soo dhaafay waxyaabihii dhacay wiig reenabadiina waxa idin markoobaad soo dhawaada waanu guuleysanay rajadanadu way sareysaa madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wareega koobaad waa ka gudbayaa wareega labaadna waa ka gudbayaa xog badan oo hayo halkan anigu macnaha ka soo deed maayo oo sir bay noo tahay insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo saacadaha soo socdo ayaad arki doontaan laakiin waxaan niyadda idinku dhisayaa oo halkan idinka sheegayaa in madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu wareega koobaad kaga soo gudbi doono number aad u sareeyo wareega labaadna numberka asaga ah uu laba jabaar noqon doono wareega saddexaadna ee guusha asaga raaci doonto halka nimankii mucaaradka ahaa ee dallayda ahaa ee jaziira fadhin jiray ee oran jiray isku af baan nahay isku mabda' baan nahay isku luqad baan nahay isku meel baan wax u wadna oran jiray xaqiiqda dhabta ah banaanka timid oo ragga ayaga ahaa dawlado kala duwan baa wato ajandayaal kala duwan bay ku shaqeynayaan oo maanta waxa cadaatay nin walba inuu goonidiisa u ordayo oo nin walba dawladii soo dirsatay iyo ajandiga u soo dhiibtay inuu isku dayiyo inuu ku kaambeyn gareeyo waad u jeedaan wax iskor saaran hadda ma jiro oo wad arkaysaano suuqi bay isku nacayn isku radilayaan isku raacayaan aadiyaan suuqana barbagaando isu galeen waxa ugu dambeeyay cabdiraxmaan cabshakuur iramako waxay yiraahdeen wuxuu u tanasulay dani bucbuc baa xildhibaanadu ku wareejiyay baa la yiri cabdiraxmaan cabshakuur habeen kala barkii saq dhaxo habeennimo asagoo dhafarsan
إذا عاد هريمي وعيراني ويسمع عزلين ولي وين تاجنا حقيقة نبت أنا دي شيء دقيش دني عبد الرحمن شكور مجعل عبد الرحمن عبد شكور الدني مجعل حسن الشيخ محمود دني مجعل دني حسن الشيخ محمود مجعل شيخ شريف مجعل حسن الشيخ محمود حسن الشيخ محمود الشيخ شريف مجعل روبلا انتو ضب روبلا يورون نيكل هذا غيره انتو ضب مجعله ايغو اسكو دوبنا نيكل هذا غيره مجعل nin walba goonidiisu u socdaa dawlad baa soo dirsatay in yaroo ma garanaysaa lacag baa loo soo dhibay lagu yiri ma garanaysaa waxaan doonaynaa daraha aan Soomaaliya ka leenahay inaad nooga fulisaan doonaynaa gada dadka xildhibaanada gado waxaad samaysaa ajandaha dalkanaga iyo bolisiga waddankanaga ka hirgeli Soomaaliya laakiin xaqiiqda dhabta ummadda Soomaaliyeed waa soo jeedaa saqiir iyo kabiir geeska gees Soomaaliya waa dhawaaq waxay yiraahdeen madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo dib hanoo lagu soo celiyo dhageyso wax yar ninka la yiraahdo dani iyo dadka u kaambeen gareynaya waxay ku faanayaan in xildhibaanada ay gadanayaan waa musuqmaasuq cadwi waa corruption cadwi macnaha ninka maanta ku ororaya xildhibaan Soomaaliyeed ayaa 30 kun siinaya ama 40 kun baan siinaya kule xaqiiqda dhabta dalkan hadii gacanta loo geliyo waxa weeye 20 kun buu bixinaya waxay noqonaysaa meel qabyaladeed bay noqonaysaa meel waxay noqonaysaa meel waxay noqonaysaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed mishaarkooda sida hadda ay ugu faanaya corruption ahaan loo dhaco xaqiiqda dhabta nin u qalma ma dalka Soomaaliya halka Xasan Sheekh Maxamuud uu shaqarsanaynin bareerihiisa uu ku leeyahay tareenkayga wali ma buuxsamin oo macnaheedu tahay nin walbo isu soo diyaari oo nin walbo waxaad soo diyaarisaa dhaca dalkan iyo musuqmaasuq lagu yaqaanay ee lacagii ma garanaysaa maxamed siyaad barre uu ka dhintay allah u naxariisto ee dawladdiisa ka burburtay uu ka arursaday Mareykanka iyo Yurub ee intuu looyarada u sameystay yiri lacagtaas la ii soo aruuriyo Soomaaliya magaceedana uu ku doontay ugu dambeynna uu Turkiga guriyaha kaga dhistay niga la yiraahdo Sheekh Shariif anigu dhaliil badan uma hayo waa oday wadaade waa oday Soomaaliyeed inkastoo asaga naftirkiisu waqtiga uu ciirayo niga la yiraahdo dani iyo niga la yiraahdo Cabdiraxmaan Shukr iyo niga la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud ورق بريرود وعدي هاي ما أنتنا أنقرسني إني مسوق ما أنتنا مجرد ساية كل يرنيو إن دلال شيء أجندياش هذا دل كين اللي قفلين حقيقة نبتة اللي بنادى الصوماليات ورق صوماليات وي قريها أنا كسر توصلنا كلا أي كسر توصل هو يوين كأننا كنا نرايو كلا أي يجرا نراي درين كان أنا قلنا إن هاي وكلا تاي يقولون ليهين حقيقة نبتة اللي بانك ما أنت دمير كي سجبته ee maanta shilimaad yar siisto umada Soomaaliyeed asagoo maanta u hanweyn tahay u maleen maayo gurigiisa iyo caruurtiisa inuu sharaf ka heli doono iska badaa Soomaali weyn oo sharaf u ka helo waxa weeye maxamed cabdullaahi farmaajo sababta umadu macnaha ku jeclaato waxa weeye wax iska cad weeye wax la qarin kara ma dhageysto wax la qarin kara oo umada laga qarin kara ma sababta wiilashii Soomaaliyeed oo adduunyada dacaladeeda ku xiraa yu ka soo daayay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hawadii Soomaaliyeed oo Kenya maamulanayso cashuur ka qaadaysay yu dalkeena dib ugu soo celiyay dhaqaalihii dalka Soomaaliya ay dani iyo Xasan Sheekh Maxamuud ay dhici jireen ilaa dani idinku hadda barateen wasiirka qorsheyntu haadiray ee dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waana ninka tirsan ururka damul jadiid xaqiiqda dhabta ku takrifalkii ay magaraysaa ku takrifaleen awoodii ee dawladnimeed iyo magaraysaa dhaqaalihii ay dhaceen iyo magaraysaa haddana ayagoon qarsanaynin umada la soo hortaagayna ku leeyihiin ninka wax qabtay ciidamada la dhisay magaraysaa institution ka la hagaajiyay ayaanu kala daadinaynaa xildhibaan oo lacagtan qaado xaqiiqda dhabta madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hooyada Soomaaliyeed baa u duceynayso aabaha Soomaaliyeed baa u duceynay waan xadaaradeysanahay guusha waan sugu laahay reer nabad iyo nolol waxba ha ku wareerina mooryaan iyo isbaariiste iyo tug dhalay iyo tug garaysaa shisheeye u shaqeeyo iyo garaysaa xaaraan ku nax qaado dariiqa doonaya ciidamada Soomaaliyeed dhaqaalahooda inuu dhaxo dowladnimada umada Soomaaliyeed u ifayso inuu dhaco doonayo iyo propaganda social media ka wadaan ha dhageysanin xaqiiqda dhabta waxa weeye madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo umada Soomaaliyeed baa la jirto umada Soomaaliyeed baa taageerayso shacabka Soomaaliyeed baa taageerayo xaqiiqda dhabta waa inay magaraysaa umada Soomaaliyeed ducadeeda la socoto weey anigu waxaan idin sheegayaa hadalkan iga qoro doorashada waxa ka haraysa cadayro kooban wareega koobaad lambar aad u culus buu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo kaga soo baxay
wareegga labaadna numberkaas isaga ah ayaa double noqon doona wareegga saddexaadna qofkaas iyo qofkaas la tartamaya idin oran maayo laakiin guusha asay la jirtaa waxa daawanayseen maanta rag nabad iyo nolol ahaan jiray oo ku soo caanamaalay nabad iyo nolol oo maanta qabyaaladu ay qaaday waxay ku hadlayaan aad arkaysaan xaqiiqda dhabta ninka ragga waa inuu qowl leeyahay qofka dumarkana meher baa xiro ninka ragga qowl kala hayn ee last minute ma garanaysaa ee cagaha dhulka ku hayn waayay ee maanta ma garanaysaa qabyaaladu intee qaad de berrito guusha markay farmaajo u timaado shacabka Soomaaliyeed ee taageersayn waxa laga yaabaa inuu soo noqdo laakiin dignity sharaf umada Soomaaliyeed agtiisa ku lahaan maayo xaqiiqda dhabta sir badan iga fakan mayso xaqiiqdu waxa weeye hebel ha keenan heblaayaha keenan ha ooyaan ha dhawaaqaan ha yiraahdaan farmaajo hadii la doorto dalka ma garanaysaa buuq iyo qeyli baan ka rudeynaa waxa soo dhan waxa isku fuuqsanayo marka madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo uu mandate helo إن شاء الله هدو إلهي يرادو إذا ماذا حوق الدلك الصوماليين وتوبريهين أشرحوض ووصل ريا مقرر سايد نقالة في عنا ويقاتان دلك أن الديار بيئيهين عدو سكية إي عدو سيشية ويسكد ينو دبو عليو إنا قعان بركو قبطان قوش وادين عينا حلبارو هويويك الصوماليين وادقيست حلبارو آبياش الصوماليين وادقيست حلبارو شعبك الصوماليين درين كي سوادركت farmaajo Soomaali baa wadato halka ragga kale ee dalal kala wataan waraad baydii salaamaya live ka caaw laga bixi maayo waa ku soo noqonaynaa guushana waa dhinaceena markaan guuleysanin insha Allah toos baan halkan iga daawan doontaan haduu Ilaahay yiraahdo insha Allah aad baydii salaamaya dhamaantiin way waaska duqburowaha nabad iyo nolol ha guuleysatay idin leeyahay salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh